maanta waxay ku beegan tahay taariikhda 3 May sanadka 2021 waa maalinta adduunka oo dhan loo asteeyay in loo dabaaldego xorriyadda saxaafadda adduunka. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan hambalyo u diro dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan dal iyo dibadba. ma maalin aad noogu weyn, waa maalin la xuso xorriyadda saxaafadda, xuquuqda wariyaasha iyo halganka wariyaasha ay ugu jiraan inay ku naaloodaan xaq ay u leeyihiin xorriyadda saxaafadda. sanad walba Nusaj waxay abaabushaa kulamo waaweyn ama isu imaatin loogu talagalay in lagu weyneeyo maalintan oo kaleenta. laakiin nooma aysan suurtagalin sanadkan inaan abaabulno kulankan oo kaleenta. sababtuna waxa ay tahay cudurkan dilaaga ah ee halakeeyay bulshadeenna, dalkeena iyo adduunka oo dhan ee loo yaqaano COVID-19. annaga oo ka taxadirayna badqabka xubnaha ururka wariyaasha Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ayaa waxaan go'aansanay in aanan sanadkan mar kale kulankan la qabanin. sanadkii la soo dhaafay xorriyadda saxaafadda iyo xaqa wariyaashu ay u leeyihiin inay si xor ah oo madax bannaan ah ay u gutaan shaqadooda waxay la kulmayeen caqabado aad u weyn. sanadkii la soo dhaafay waxaa la dilay 2 wariye, waxaa la xiray 33 wariye oo dhammaan gobollada dalka oo dhan lagu xiray. Nusaj waxay diiwaan gelisay 148 dhacdo oo ka dhan ah xorriyadda saxaafadda. taas waxay ku muujinaysaa dhibaatada aan kala go'an lahayn ama kala joogsiga lahayn ee loo geysanayo wariyaasha iyo xarumahooda warbaahinta. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamulada dalka ka jira oo igu horeysa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulka Somaliland in la joojiyo caburinta iyo cagajugleynta loo geysanayo wariyaasha, in si buuxda loo damaanad qaado amniga iyo xorriyadda suxufiyiintu ay leeyihiin, inaan marnaba la khatar gelinin badqabka wariyaasha. waxaan arkaynaa weeraro abaabulan oo ka dhan ah suxufiyiinta, gaar ahaan loo isticmaalayo hay-adaha sharciyeed fulinta, hay-adaha sharciga si loo caburiyo wariyaasha. waxaan cod dheer aan ku leenahay waa in la joojiyo caburinta, cagajugleynta iyo handadaadda loo geysanayo wariyaasha. wariyaasha Soomaaliyeed waa indhaha, afka iyo dhagaha bulshada Soomaaliyeed. ma istaahilaan in marna la caburiyo ama cagajugleyn loo geysto. maamulada dalka ka jira oo ugu horeysa dowladda federaalka waxaan mar kale ugu baaqaynaa in wax laga qabto dambiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah wariyaasha sida joogtada leh ee u dhacayo. Nusaj waxay mar walba u taagan tahay difaacitaanka wariyaasha, marna kama leexan doono inaan ka hadalno tacadiga iyo caburinta loo geysanayo wariyaasha meel kasta oo dalka ah. waxaan aaminsanahay xorriyadda saxaafaddu inay tahay xuquuq aasaasi ah oo dastuuri ah oo dastuurkeenna uu dhigayo, sharciyada caalamigana ay jidaynayso. marna ma aqbali karno in wariyaasha loo diido in ay xuquuqdaas dastuuriga ah ama xuquuqdaas caalamiga ah ay ku naaloodaan. ugu dambeyntii waxaan leeyahay hambalyo dhammaan bahda saxaafadda, gaar ahaan suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ah geesiyaal u taagan u hiilinta bulshadooda, wax u sheegidda bulshadooda iyo wacyigelinta bulshadooda. waxaan u rajaynayaa sanad wacan oo wanaagsan inay badqab iyo caafimaad iyo xirfad wanaag ay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa xiga. hambalyo.